kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Usbuuca iyo Soomaaliya oo toddobaadkiiba xilliyadan oo kale aad ka daawataan channelka Xusuus Ujoog Media. qodobada aad ku daawan doontaan maanta waxa ka mid noqon doona dalka Sweden oo xaaladda coronavirus uu saameeyay iyo dhimashada Soomaalida dalkaasi oo sii korortay. Somaliland oo soo saartay amaro hor leh oo ay uga hortagayso cudurka COVID-19. qodobada kale aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona ciyaaryahan ka tirsanaan jiray qaranka Soomaaliya oo u geeriyooday xanuunka coronavirus. toddobaadkan dawladda Soomaaliya waxay qaad ku gubtay magaalada caasimadda ee Muqdisho. qodobada kale ee barnaamijka Usbuuca iyo Soomaaliya aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo toddobaadkan la wareegtay deeq caafimaad oo looga hortagayo xanuunka coronavirus iyo sidoo kale dawladda oo sheegtay in ay gacanta ku dhigeen sarkaal sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab. isku horimaad toddobaadkan magaalada Gaalkacyo ku dhex maray ee Maleeshiya xoog ku furanaysay maxbuus qarax sababay khasaare kala duwan oo ka dhacay toddobaadkan magaalada Muqdisho iyo boqorka dalka Wales oo laga helay xanuunka coronavirus. waa hagaag daawadayaal intaas waxay hayeen qodobada ugu waaweyn ee barnaamijka Usbuuca iyo Soomaaliya. haatan waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan. waa channelka Xusuus Ujoog Media. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe inoo saarto gambaleelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela macluumaadka iyo warbixinada aan bartaan soo gelino. waliba inagala soco Xusuus Ujoog Media. waddanka Sweden ayaa wajahayo xaalada dhanka xanuunka coronavirus ah iyadoo ay kordheen dhimashada muwaadiniinta waddankaasi iyo Soomaalida ku nool. inta la xaqiijiyay Soomaalida u geeriyootay xanuunka ayaa ilaa ay ruux waxaana kamid ah professor caan ka ahaa gudaha dalka Sweden gaar ahaan Soomaalida. dawladda Sweden ayaa hore u jeedisay wacyigelin ku aadan in dadka aysan isku imaanin balse Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka kala duwan ee waddanka Sweden ayaa iyagu arrinkaas waxay yihiin kuwa ka dhaga adeegaya isla marhaantaana isugu imaanaya meelaha bulshada ah. dhinaca kalena Somaliland ayaa waxay soo saartay amaro hor leh oo ay uga hortagayso xanuunka COVID-19. maamulka Somaliland ayaa mar kale soo saaray go'aano hor leh oo ay ku doonayaan inay uga hortagaan faafidda cudurka halista ah ee coronavirus oo ku faafaya dalal ku yaala Geeska Afrika iyo Bariga Afrika. wasiirka caafimaadka Somaliland Umar Cali Cabdullaahi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa waxa uu sheegay in laga bilaabo waqtigan dadka ka soo degaya garoonka diyaaradaha Cigaal International markaasi lahayn doono muddo 14 maalmood ah si loo hubiyo xaaladooda caafimaad. waxaa faahfaahinno kala duwan laga helayaa qarax ka dhacay agagaarka isgoyska sayidka ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. qaraxan oo jugtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhacay maqaayad ku taala meel u dhow isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. waxaana la sheegay in qaraxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dad ku sugan halka uu qarax ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa uu ahaa ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa isla marhaantaana uu galay maqaayad ku dhow baar bulsho halkaas oo ay inta badan fariistaan dad u badan ciidanka dawladda isla markaana uu isku qarxiyay goobta. wararka laga helayo qaraxa ayaa waxay sheegayaan inuu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo soo kala gaaray askar iyo dad shacab ah. waxaana wararka aynu helayno ay sheegayaan in dadka dhintay ay ku jirto haweeney lahayd maqaayadda. maqaayadda qaraxu ka dhacay ayaa waxay ahayd mid dadka ay ka cunteeyaan iyada oo sidoo kale ay lahayd goob ay dadka ku wada sheekaystaan. waxaana weli si rasmi ah loo cadeyn karin khasaaraha ka dhashay qaraxaasi inkastoo warar hordhaca oo aynu helayno ay sheegayaan in ilaa ugu yaraan 3 ruux ay halkaasi ku geeriyoodeen. laamaha ammaanka Soomaaliya weli wax faahfaahina kama aysan bixin qaraxan ismidaaminta ah ee ka dhacay meel u dhow isgoyska sayidka ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. balse ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya oo goobta soo gaaray ayaa dhammaan waxay xireen jidadka soo gala isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. waxaana weli jirin cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan ay ku geeriyoodeen ilaa iyo 3 ruux. waxaana qaraxyada noocaana looga bartay inay sheegtaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. dhinaca kalena iska horimaad uu ku dhaawacmay taliyihii xabsiga magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu ka dhacay waqooyiga magaaladaasi. wararkan ka helayno waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in magaaladaasi saacadihii la soo dhaafay iska horimaad ay dad ku dhaawacmeen uu ku dhex maray Maleeshiya xoog ku furatay maxbuus iyo ciidanka ilaalada xabsiga Gaalkacyo.
inta la xaqiijiyay 4 ruux oo ay ku jiraan maxbuuska xoogga lagu furtay iyo taliyaha xabsiga Gaalkacyo ayaa ku dhaawacantay shaqaaqadaasi waxaana la sheegay in markii maleeshiyadan ay sida xoogga ku furanaysay maxbuuska loo sii waday cisbitaal kadib markii uu ku xanuunsaday gudaha xabsiga wararka qaar ayaa sheegaya in maxbuuska ay maleeshiyadan xoog ku furteen uu ku xukunaa dil toogasho kadib markii lagu helay inuu ku lug lahaa dil ka dhacay magaalada Gaalkacyo ammaanka waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa muddooyinkii dambe waxa uu noqday mid faraha ka sii baxayay iyadoo magaaladaasi ay si joogto ah uga dhacayeen dilal qorsheysan iyo iska horimaadyo kala duwan waxaana ugu dambeeyay dilkii loo geystay Allah u naxariistay xildhibaankii golaha deegaanka Gaalkacyo ee maamulka Puntland Mukhtaar Axmed Cumar Tiine dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigeen sarkaal sare oo ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab guutadooda koobaad ay gacanta ku soo dhigeen sarkaal sare oo ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab sarkaalkan ay dowladdu sheegtay inay soo qabatay ayay magaciisa waxay ku sheegtay Ibraahim Maxamed Rooble waxayna sidoo kale tilmaamtay in laga soo qabtay qaybo kamid ah degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose howlgalkan lagu soo qabtay sarkaalkan ayaa dhacay 23kii bishan waxaana qoraalka ka soo baxay dowladda Soomaaliya lagu cadeeyay in shakhsigan uu kamid ahaa saraakiisha ugu sarsareysay al-shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose ma jirto weli wax wara oo ka soo baxay al-shabaab oo ay uga hadlayaan warka dowladda ee ah in sarkaal sare oo iyaga ka tirsanaa ay ku qabteen gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Wallaweyn muddooyinkii u dambeeyay dowladda federaalka ayaa howlgallo qorsheysan waxay ka sameynayeen gobolka Shabeellaha Hoose waxaana dhowaanay si buuxda ula wareegeen magaalada Janaale iyagoo sidoo kale sheegay in degmooyin iyo deegaano kale ay qabsan doonaan askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa lagu dilay suuqa weyn ee Bakaaraha gaar ahaan agagaarka laamiga shirkadaha waxaana askariga la dilay la sheegay in hore looga sii qaatay qori uu watay sidaan wararka ku helnay askariga ayaa waxa dilay ciidamo kale oo xirnaa dreeska ciidanka dowladda Soomaaliya kuwa oo dilka kadib la sheegay inay hore uga sii qaateen qorigii uu watay goobtan ay uga dhaqaaqeen meedkiisa askariga booliska ka tirsanaa ganacsatadii iyo shacabkii ku sugnaa goobta dilku ka dhacay ayaa aad uga argagaxay waxaana markii dambe goobtaasi soo gaaray ciidamo ka tirsan booliiska oo halkaasi ka sameeyay baaritaano horeyna u qaaday meedka askariga la dilay magaalada Muqdisho ayaa waxa aad uga yaraa dilalka noocan oo kale ah inay isku geystaan ciidanka dowladda waxaana mararka qaar horey u dhici jirtay in ciidamo ay isku dilaan sabab la xiriira kala shaki iyo sidoo kale inay qoryaha kala dhacaan markaana Gaalkacyo waxaa faahfaahin dheeri ah laga helayaa dil xalay kooxo hubeysan ay u geysteen xildhibaan ka tirsanaa golaha deegaanka magaalada Gaalkacyo ee dhinaca maamulka Puntland marxuumka la dilay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Mukhtaar Axmed Cumar Tiinle waxaana kooxo hubeysan ay ku rasaaseeyeen waqooyiga magaalada Gaalkacyo taasi oo keentay in markii dambe uu ku geeriyooday cisbitaal dhaawac ahaan loogu qaaday markii hore sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in qof shacab ah uu ku dhaawacmay rasaastaasi walow warar kalena ay tilmaamayaan in shakhsiga dhaawacmay uu ahaa askari ka tirsanaa ciidanka ammaanka maamulka Puntland saakay waxaa howlgallo lagu baadigoobayo raggii falkaasi geystay ay ka soconayeen qaybo kamid ah magaalada Gaalkacyo ee maamulka Puntland al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda lagu dilay xildhibaan Mukhtaar Axmed Cumar oo ka tirsanaa golaha deegaanka magaalada Gaalkacyo waxayna sheegeen in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay gudaha magaaladaasi ku dileen xildhibaanka magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso ayaa waxa siyaabooyin kala duwan loogu dilaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland waxaana inta badan laamaha ammaanka maamulkaasi ay sheegaan in ay si buuxda wax uga qabanayaan amni darrada ka jirta magaalooyinkaasi oo kamid ah kuwa ugu waaweyn ee deegaanada Puntland maamulka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen rag la sheegay in fal kufsi ah ay xalay gudaha degmadaasi ugu goysteen haweeney Cabdullaahi Raage Colow xogayaha degmada Warshiiq oo la hadlay warbaahinta ayaa tilmaamay in 2 nin oo falkaasi lagu soo eedeeyay ay haytan gacantooda ku jiraan isla markaana ay ku wadaan baaritaano isagoo xusay inay marsiin doonaan ciqaabta ay muteystaan sidoo kale xogayaha oo si hadlay ayaa sheegay in ragga kufsiga geystay uu mid kamid ah hubeysnaa waxa uuna hoosta ka xariiqay in raggani ay yihiin maleeshiyaad hubeysan oo uu tilmaamay in maalmahan ay dadku ku dhibaateynayeen degmadaasi waxa uuna sheegay in maamul ahaan ay ka hortag wadeen
dhanka kale xogayaha Warshiiq ayaa ka dhawaajiyay in shacabka degmada ay ka gacan siiyeen sidii raggan gacanta ugu soo dhigi lahaayeen waxaana intaas ku daray in raggan kiiskooda loo wareejin doono heer maxkamadeed bil ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale rag hubaysan ay duleedka degmada Warshiiq ka geysteen dhac iyo kufsi waxaana haatan dhaliil loo jeedinayaa laamaha ammaanka ee degmadaasi. waa hagaag daawadayaal waxaa intaas ku dhan barnaamijkii Usbuuca iyo Soomaaliya oo aan idin soo jeedinaya anigoo Yuusuf Cabdullaahi Maxamed waxa soo diyaariyay Dalmar Cabduqaadir waxaad kala socoteen channelka Xusuus Joog Media intaan mar kale ku kulmi doono sidaas nabadgelyo.